ciyaarta bartanka ayaa kubadda la dhigay way bilaami doontaa waxa jecel haweenada ku hawlan tabinta tooska ee ciyaaraha gobolada Soomaaliland in aan ku wareejiyo Khadar Ciise Dheere waan aydiid aad baad u mahadsan tahay dawdeel hadda waxa si toos ah inoogu bilaami doonta ciyaartii ugu xamaasadda iyo xiisaha badnayd ee wareegii labaad ee ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo maanta hirdanaga uu ku dhex mari doono gobolada Gabiley iyo gobolka Hawd haddii ush amba walax cirka loo tuuro aanay dhulka ku soo noqonayn cirka loogu tuuro iyo meel alla meel aad ka aragto indhahaagu qabanayaan taageerayaasha iyo taarabunada labada dhinac joogaaba ku soo jiidanayaan sida tirada badan ee loo soo buuxiyay waxaanay hadallada maqlaysaan dhiirigelin iyo guubaabo u yihiin labada xul ee gobolada Hawd iyo gobolka Gabiley hadda kubadda waxaa loo taabtay oo wata xulka gobolka Gabiley lambar 3 xulka gobolka Gabiley Mawlid Cabdi Xasan Oday sawaa dhigay laakiin dhinaca ayay ka martay kubad shuudo laagay goloodaha xulka gobolka Hawd golwada yudo ay kubaddaas u dhigay Aamin Tuufo isagu lambar 12 xira xulka gobolka Gabiley xulka gobolka Hawd Liban Gatuso waxa uu dhigay Sharma ka faad laakiin uma suurto xulka gobolka Gabiley ninka difaaca uga ciyaaraya xanaaqada ayaa lagu qabtay xulka gobolka Hawd waxaana lagu soo laabi doonaa dhanka goolka xulka gobolka Hawd baa lagu soo laagay laakiin goolada yuuya ayaa kubaddaasi dhinaca kooraha uga difaacay dhanka goolkiisa kubadda aad u sarreysa oo bartanka goolka uu ka soo laagay Maxamed Cabdi Xasan Jufo waxa ka saaray goolada yuuyo kubaddaasi geeslaaga ayaa waxa soo laaga doona xulka gobolka Gabiley way soo laagteen laakiin madaxa waxa ku qabtay Liban Gatuso mar kale weerar xulka gobolka Gabiley laakiin difaaca ninka uga ciyaaraya baasha dhinaca ee xulka gobolka Hawd ayaa difaac weyn ka galay dhanka goolka Gabiley xanaaqada ayaa mar kale sidoo ku qabtay lagu galay xulka gobolka Hawd kubaddaas ayaa waxaa laabi doona xulka gobolka Hawd oo xanaaqadaasi lagu galay labada ciyaaryahan ee u kala ciyaaraya gobolada Hawd iyo gobolka Gabiley ayaan moodaa inay labadooduba ay loolada ku jiraan sidii ay ciyaarta guusha koobaad oo mid kasta uu doonayo inay labintu ku raacdo inuu guul amba goolka koobaad uu isagu keeno laakiin labada difaac ee labada xul kala ciyaaraya waxaad moodaa inay yihiin qaar u dhiga nugul isla markaasina u joogaba in aanay gool aanay dhinacooda u dhaafin waxaana laagay kubaddaasi Aamin Tuufo waa laagay kubadda u dheer Aamin Tuufo waa laagay Caadil Goodure lambar 9 xulka gobolka Hawd Aamin baa soo laagay kabtan Cabdiraxmaan Ilkacase Liban Gatuso oo dhaafay laakiin xanaaqada ayaa lagu qabtay lagu galay xulka gobolka Gabiley xanaaqadaas ayaa waxaa galay xulka gobolka Gabiley waxaana loo qabtay Liban Gatuso isagoo ninka baasha labaad uga ciyaaraya xulka gobolka Hawd waa ninka baasha lambar 2 ee difaaca uga ciyaaraya xulka gobolka Hawd oo kubadda aad u qurux badan la dhaafay difaaca kabtan Ilkacase ayaa kubaddaasi ku laadi doona dhanka goolka gobolka Gabiley Ilkacase waa laagay kubadda aad u dheer waa laagay Liban Sharma ka faad laakiin uma suurto gelin in kubaddaasi waxay noqotay xanaaqad xulka gobolka Gabiley ayaa soo laagi doona dhaylaad baa kubaddaasi u soo saartay saaxiibkii Mawlid Cabdi Xuseen Oday Sharma ka faad kabtan Ilkacase
xulka gobolka hawd cabdicasiis garyar عادل جول هرة عادل جول هرة عادل جول هرة لكن واحد دفاعي دفاع حلقة قبل الجميلي وسليمان علي ورسمه ayaa isagu kubadaasi madax gacan ku soo tuuray laakiin goolwada qabsaday ee kubadaas garyar aamin laakiin waxaa ka difaacay gobolka gabiiley gobolka hawd weerar laakiin xulka gobolka gabiiley waa ka qabtay kubadaasi waa ka qabtay lambar 9 xulka gobolka gabiiley mukhtaar meesi faawal xaraaqad ayaa uu qabtay sidoonuhu xaraaqad ayaa uu ku qabtay xulka gobolka hawd waxaanu hadda uu siin wada guruuda uu siin doonaa amba digniina ninkii xaraaqadaasi galay waxaanu hadda kaar jaalla ama huruuda u taagay xamse ardiid cali oo lambar 6 xiran xulka gobolka hawd uu siiyey sidoodaha ciyaarta koobaad ee garsooraya kaar huruuda ayaa uu siiyey xamse cabdi cali waxaana hadda laadi doona kubadaasi xulka gobolka gabiiley oo xanaaqadaasi lagu galay mukhtaar meesi oo isagu funaanada 9aad u sita xulka gobolka gabiiley hadda xanaaqadaasi ayay laaban doonaan xulka gobolka gabiiley sawaxan badan iyo buuq badan ayaa ka soo yeeraya dhanka taarabuunada labada ciyaartooy ee gobolada hawd iyo gobolka gabiiley taageerayaal badan oo garoonku ka buuxsamay ayaa sidoo kale waxay fadhiyaan barxadda hore ee dibadda iyagoo ku daawanaya telefishinada ay hadda sida tooska uga socdaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland maadaama uu suurtageli weeday amaba ay ka heli waayeen boos ay ka fadhiistaan garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa jihada galbeed oo isagu ah meesha inta badan iyadoo harka ayaa moodaa in trainti ka badan ay buuxiyeen oo labadii duhurnimo markay saacadda geeska Afrika ay taageerayaal badan oo xulka gobolka gabiiley iyo xulka gobolka hawd ay iska soo buuxiyeen dhanka jihada bari ee garoonka Hargeysa Stadium oo iyadoo inta badan ah meel cadceeda oo teeteed ama meelo banaan laga arki jiray inta ciyaaraha gobolada Soomaaliland ay hore u socdeen ayaa maanta moodaa inuu gabi ahaanba u buuxo taageerayaasha intooda badanna waxa ay fadhiyaan dibadda oo garoonku ka buuxsamay telefishinada hadda sida tooska uga socda ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee Home Cable TV iyo telefishinka qaranka Soomaaliland Star TV SBC Bulsha TV iyo waliba Somaliland Space Channel ayaa hadda si toos ah uga daawanayaan inta kale YouTube daawan karta ee dibadda joogta waxay ka daawanayaan barta YouTube-ka Real Video oo iyadu inoo soo gudbin doonto muuqaaladaasi aad ka quruxda badan leh dhanka isgaarsiinta internetka maanta gudbinta u leeyahay waa shirkadda isgaarsiinta ee Somtel kubadda hadda ayay laagi doonaan xulka gobolka gabiiley xulka gobolka gabiiley kubaddaasi hadda waxa uu isku salixi doonaan inay laagaan Ridwaan Cabdi Cali Galooley oo lambar 8 xiran ayaa kubaddaasi laadi doona waa laagay laakiin dhinaca ay ka martay goolwadaha uu gaardiyaha ka yahay Yuyo kubaddaasi ayaa hadda uu salixi doonaa Yuyo waxa uu laagay Cabdicasiis Garyar oo isagoo difaaca hore ugu ciyaaraya xulka gobolka hawd Cabdicasiis Garyar waxa uu dhigay Xamse waxa uu dhigay Caadil Good Hurre laakiin kabtan dheeraad baa kubaddaas ka qabtay Aamin Tifo waay baxday
gacan tuurasha ayay kubaddaasi u baxday waxaana gacantaasi soo tuuran doona lambar 3 xulka gobolka gabiiley mawliid cabdi xuseen oday kubaddaasi waa u laagay cabdiriyaad laakiin ma u gaadhin liibaan gatuuso ayaad moodaa in nin isagu lagu ballamiyey cabdiriyaad oo isagu dhinaca soko uga ciyaarayo oo isagu faraska dhinaca soko uga ciyaaraya xulka gobolka gabiiley liibaan gatuuso oo lambar 2 u xidhan ayaa lagu ballamiyey oo aad moodaa inuu shaarka la xidhanayo cabdiriyaad oo isagu ninka ugu weerarka culus leh xulka gobolka gabiiley oday lambar 3 xulka gobolka gabiiley waa uu turtay master oday cabdiriyaad faawal ama cheating ayaa uu ku qabtay shirwaduhu lagu galay liibaan gatuuso oo isagu xulka gobolka hawd amiin axmed tiifo oo lambarka 22aad u xulay ayaa kubaddaasi laadi doona amiin tiifo waa uu laagay sharmaake faad sharmaake yaaqi laakiin difaaca xulka gobolka gabiiley waa iska difaacay kubaddaasi inkastoo sidwada maaxuu sheegay inay kubaddaasi xanaaqad lagu galay xulka gobolka gabiiley ay tahay waxaanu kaadhka huruudda uu siiyey laacibka isagu dhinacaasa ka uga ciyaaraya xulka gobolka hawd waa sharmaake faad oo isagoo ninkii goolka hore u dhaliyey maalintii hore ee xulka gobolka gabiiley la ciyaarayeen aandhaada xulka gobolka hawd ay la ciyaarayeen sool sharmaake faad ayaa uu sidwada maaxuu siiyey kaadhka huruudda ama digniinta سليمان علي ورسمه ayaa kubaddaasi laadi doona lambar 15 xulka gobolka gabiiley kalluun dawreel hadda aan idinku wareejiyo maxamed xamdulla isagoo halkaasi naga soo wadaa muqaabka ciyaarta sharmaan liibaan aamin laakiin allah ma suurtagelin inay kubaddaasi dhaafto nasrudiin cabdi xuseen maari goolaha xulka gobolka gabiiley ayaa kubaddaasi si qurux badan isaga difaacay محمد شنو aad baad u mahadsantahay khabar ciise dheere daawadayaal ciyaarta dhex maraysa labada xul gobol ayaa ciyaartii ugu xiisaha badnayd tan iyo inta ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ay socdeen oo maanta ay ku tahay 8 kubad aad u muhiima fursad aad u muhiima oo xulka gobolka hawd ay heleen ciyaaryahanka lambarka 7 u xidhanay aamin uu ka khasaariyay xulka gobolka hawd kadib markii uu garso goolhayaha xulka gobolka gabiiley uu kabadaasi ka badbaadiyay oo kaligiis ku baxeen hadda waa koorna ayaa la soo laagay geeslaagaasi laakiin soo iska soo difaacay ciyaaryahanada xulka gobolka gabiiley markale ay ku soo celiyeen way iska soo difaacaan haddana xulka gobolka gabiiley baa hadda wata gabiiley cabdiriyaad mustafa messi gabiiley laakiin wuu ka badbaadiyey cabdiqani yuuyo ayaa kubaddaasi ka badbaadiyey ciyaaryahanka lambarka 8aad u xidhan xulka gobolka gabiiley master ridwaan cabdi aadan galoolay ayuu kubaddaasi ka badbaadiyey kadib markii ay isku baxeen isaga iyo goolwadaha oo keliya hal difaac oo xulka gobolka hawdi ay iska rabyaacayeen hadda xulka gobolka gabiiley waa geeslaag soo laadanayo way laagteen way iska soo difaaceen xulka gobolka hawd way iska soo difaaceen ciyaaryahan liibaan gatuuso ayaa kubadda iska soo saaray hase haatee gacan tuurasho ayay noqotay gacan tuurashadaasi tuuran doona way turteen gabiiley gacan tuurashadaasi amiin tifo xulka gobolka hawd uga ciyaaray dhinaca daafaca ayaa kubaddaasi ka soo qabtay cabdiriyaad kubad dheer caadil good laakiinse garsooraha ayaa waxaa tilmaamay isagoo calaamaduhu inay tahay kubaddaasi hormadhaqaaq ama hormadhac ama offside kolba sidii uu qof walba u garanayo xulka gobolka gabiiley ayaa hormadhacaasi oo dhinacooda ay u baxday soo laagan doona waxaana soo laagaya ciyaaryahanka isagu ee dhinaca daafaca u ciyaaraya ee Saleebaan la yiraahdo magaciisa waa ay soo laagan doonaan waa ay soo laagtay kubaddaasi xulka gobolka hawd ba iska difaacay caadil baa wata caadil good waa laga soo reebay gabiiley hadda kubad khalad ah ayaa waxaa loo qabtay xulka gobolka hawd ayaa loo qabtay oo kubaddaasi khaladka laagan doona ciyaaryahan cabdiraxmaan ilkaca soo kabtanka xulka gobolka hawd oo daqiiqado kooban garoonka ka maqnaa kadib markii uu dhaawac soo gaadhay ayaa hadda dib ugu soo laabtay waxaa doona ciyaaryahanka isagu 20 ka u xidhan baa xulka gobolka hawd u laagi doona oo magaciisa la yiraahdo
خبير مصطفى أنا هذا قبل كهذا شرماكر هذا الله كداس بدأ سواء وصل قبل كقبل شرماكر هذا يا وطا شرماكر هذا دينا بدح ويرك أيو كلا تاجين كبدا سجع عن تورش أيو بحذي حلك قبل كهذا يقع عن تورش هذا شيء توران دونا داودyaal intay tartanka ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ay socdeen ciyaartana ayaa ciyaartii ugu xamaasada badnayd marka aad eegto sida ay labada xul gobol ay u wada ciyaarayaan iyo taageerayaasha dadka ka soo qayb galay 20,000 oo qof ayuu qaadaa garoonka Hargeysa Stadium oo ka kooban laba qaybood oo ah bari iyo galbeed dhammaan way buuxaan xataa kaabadaha yaryar ee la mare ee loogu talagalay inay dadku maraan marka uu qof xagga sare fadhiisanayo ayaa buuxa oo waa ciriiri xataa wali ma ay istaagin taageerayaasha galayaan garoonka ayay wali soo socdaan oo dhinaca dibadda ah waxa dhinaca garoonka laga soo galo saddexda labada albaab ee ugu waaweyn ee laga soo galayo ayaa ay safaf dhaadheer u jiraan ayadoo saddexda dhinac wadooyinka ay ka maraan garoonka Hargeysa Stadiumna oo dhamaana ay gawaaridu ay jaam yihiin oo aanay xataa soconayn oo dirqa ku socdaan kadib saxmadda dadka iyo taageerayaasha ku soo qulqulaya garoonka weyn ee Hargeysa Stadium maadaama ciyaartani tahay ciyaar aad u xiiso badan ciyaaryahan ayaa dhaawacmay laba ciyaaryahan ayaa hadda uu garsooruhu la hadlaya oo si khaldan isku afdaafay ciyaaryahanka lambarka 3aad u sita xulka gobolka Gabiley iyo ciyaaryahanka lambarka 2aad u sita xulka gobolka Hawd Sharmaake Fuaad iyo ciyaaryahanka 3aad u sita Mawlid Cabdi Xasan Oday daawadayaal ciyaartu aad ay u xiiso badan tahay ciyaaryahanka xulka gobolka Hawd kabtanka u ah ayaa dhaawac la soo dirsay kolba dhulka ayuu fadhiisanayaa hadda waxay wada hadlayaan garsooraha waxaana uu sheegay garsooruhu inta dhaawaciisa la xalinayo in uu dibadda uga baxo garoonka oo ay ciyaartu sidaas ku sii socoto Cabdiraxmaan hadda dibadda ayuu soo baxay waxaana uu kabtankii ku wareejiyay kabtanka labaad ee xulka gobolka Hawd lambar 12 ninka u xiran oo la yiraahdo Amin Tifo waxaana lagu soo bedelay oo laga soo bedelay hadda ciyaarta ciyaaryahanka lambarka 4 sita ayaan la good oo ah dhexda kubadda cagta xulka gobolka Hawd inta badan shaandheeye ee qaabeeya ayaa kubaddaasi hadda soo galaya oo lagu soo bedelay Cabdiraxmaan Xasan Warsame kabtanka xulka gobolka Hawd oo dhaawacmay oo dhaawac la soo dirsay ciyaartu aad bay u xiiso badan tahay daawadayaal waxaana ay maraysaa natiijadeedu eber iyo eber labada xul gobolba ciyaarihii koowaad ee ay soo yeesheen waa ay soo guuleysteen oo xulka gobolka Hawd waxa uu ka soo guuleystay xulka gobolka Sool halka xulka gobolka Gabiley uu ka soo guuleystay xulka gobolka Daadmareed Messi oo xulka gobolka Gabiley u sita lambar 9 ayaa kubaddaasi isagoo isla safka ku kantaroolo xabadka ku kantaroolo isagoo leh waxay kaga dhacday gacan garsoorahana waxa uu tilmaamay calaamaduhu inay kubaddaasi gacan tahay waxaana laadanaya xulka gobolka Hawd ciyaaryahan Xamse oo sanadkan oo lambar 6 u xiran xulka gobolka Hawd sanadkan ku soo biiray xulka gobolka Hawd oo sanadkii hore u ciyaaray xulka gobolka Daadmareed ayaa kubaddaasi u soo dhibay saaxiibkii Amin Tifo kabtanka labaad ee xulka gobolka Hawd oo laadanaya kubaddaasi waxa ciyaarta lagu soo bedelay ciyaaryahankii lagu soo bedelay ilkaase goodan lambar 4 sita ayaa ciyaarta soo galay hadda xulka gobolka Hawd kubaddaasi waa ay laadanayaan kubaddaasi waa ay laadanayaan Amin Tifo waa uu laagay kubaddaasi way iska soo difaacaan xulka gobolka Gabiley laakiin kubad khalada waxa qabtay garsooraha dhexe ciyaarta dhexdhexaadinaya Yusuf Maawe kubaddaasi laaga xorta ay soo laadan doonaan xulka gobolka Gabiley ciyaaryahanka isagu lambarka 15 ee xulka gobolka Gabiley u xiran oo la yiraahdo magaciisa Salaabaan ahna ciyaaryahan laag dheer ee kubaddaasi soo laagana baas ayuu u dhibay saaxiibkii lambar 13 Maxamed Jufo wuu u dhibay lambar 8 xulka gobolka Gabiley waa wali haysta Maxamed Jufo xulka gobolka Gabiley waa wali kubadda wata kubaddaasi waa hormadhac ayuu tilmaamay calaamaduhu hormadhac ama offside daawadayaal haddii hormadhac inta badan ee aan ciyaaraha sida wanaagsan ula socnin haddii aan idin sii jilciyo hormadhac waa marka ciyaaryahanka xulka gobolka markaasi kubadda wataaye haddii ciyaaryahankooga lambarka 9 ama mid ka midi uu kubadda isida oo loo dhiibin uu galo ciyaaryahanada xulka gobolka kale ee ka soo jeeda daafacna ay xaggan uga soo wada baxaan oo uu ka wada dambeeyo ayaa kubaddaasi hormadhac la yiraahdaa waxaana kubaddaasi mar kastaba qabta oo ay waajibkiisa tahay calaamadaha isagu dhexdhexaadinaya labada calaamado midkood ka ugu dhow gaar ahaan garsooraha dhexe xataa shaqo kuma laha in uu qabto xulka gobolka Gabiley waa wata Hawd baa wata hadda ayaa la good xulka gobolka Gabiley baa qabtay haddana Hawd bay kubadda ku xulka gobolka
hawd baa kubaddaasi isku dhiidhiibanaya lambar 8 xulka gobolka hawd baa kubad dheer waxa uu tuuray aamiin hase haatee ciyaaryahanada xulka gobolka gabiley mid ka mid ah daafacyahanadeeda ayaa soo qabsaday kubaddaasi waa uu soo laagay laag dheer xulka gobolka gabiley ayaa wata xulka gobolka gabiley maxamed shufaa ayuu dhibay maxamed shufaa xulka gobolka gabiley laag dheer way iska difaacanayaan lagooda oo bedel ku soo galay ciyaarta madax ku difaacay laakiin gacan tuurasho ayay kubaddaasi u baxday waxaana tuuranaya xulka gobolka gabiley lambar 3 xulka gobolka gabiley oday ayaa tuurtay meesi buu dhibay oday baa loo soo dhiibay oday waa iska qabteen xulka gobolka hawd daafac ayaa kubaddaasi soo daaray ciyaaryahanka lamba goolaha xulka gobolka Salman Yuyo ayaa kubaddaasi soo ka badbaadiyay hadda laakiinse waxay kubaddaasi waa ay baxday way soo laaganayaan xulka gobolka hawd ciyaaryahanka isagu lambarka 12aad xulka gobolka hawd ayaa kubaddaasi soo laagaya waa ciyaaryahanka isagu daafac uga ciyaaraya xulka gobolka hawd wana ciyaaryahan muddo badan ku soo dhex jiray kubadda Amin Tifo waa laagay laag dheer xulka gobolka Gabiley baa iska soo difaacay xulka gobolka Gabiley baa hadda wata lambar 4 gobolka Gabiley lambar 4 gobolka Gabiley waa ciyaaryahanka magaciisa la yiraahdo Gabiley kubad dheer oo uu soo daadiyay ciyaaryahanka lambarka 4 wuxuu dhan xulka gobolka Gabiley oo magaciisa la yiraahdo Mubaarig Daawo ayaa kubaddaasi ay ka baxday waxaase xulka gobolka hawd ay u saareen dhinaca kubadda dhinaca goolkooda ka saareen geeslaaga ayaanay noqotay geeslaagaasina waxa soo laaganaya ciyaaryahanada xulka gobolka Gabiley ciyaaryahanka inta badan kubadda xorta iyo geeslaagyada u laagay xulka gobolka Gabiley maxamed Shufaa ayaa kubaddaasi soo laagaya waa soo laagay kubad dheer oo wareegaysa hasaati kubaddaasi cidi wali may taabanin gacan tuurasho ayay u baxday kubaddaasi uu soo laagay iyadoon cidi taaban ayuu dhinaca ka soo laagay maaha dhinaca kale intay ka baxday gacan tuurasho noqotay waxaana gacan tuurashadaasi tuuranaya xulka gobolka hawd ciyaaryahanka isagu daafaca bidix uga ciyaaraya ee la yiraahdo Libanka Tuso ciyaartu ilaa hadda waa eber labada xul gobolba waxay isku dayayaan inay goolka ku horeeyaan waxaanay sameynayaan fursado muhiim ah oo mid walba weerarkiisu uu sameynayo oo ay doonayaan in xulka gobolkiisa uu mid waliba uu u dhiibo hoggaanka oo ay ka horeeyaan hoggaanka ciyaarta ciyaaraad waxa xiiso badan weey run ahaantii xulka gobolka Gabiley xulka gobolka hawd ayaa kala wareegay kubadda ayaan la good kubadda waa u tuuray saaxiibkii asaate kabtanka xulka gobolka Gabiley baa soo qabtay wali Gabiley baa wata Gabiley maxamed Shufo Gabiley Cabdiriyaad gadhir bay isku maran yihiin gadhir waa uu ka qaaday kubadda gadhir baa uu la haystaa gadhir gobolka hawd waa uu ka qaaday kubaddaasi laakiin khalad kubadeed ayaa wax loo dhigay xulka gobolka hawd kubaddaasi waa ay laageen hase haatee garsooraha go'aaminayay laageen waxaana uu garsooruhu ku amray dib loo soo celiyay kubaddaasi tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hadda wadayalka ugu xiisaaya xamaasadda badan horyaalada laga ciyaaray dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waana tartan ay ka soo qayb galaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaana lagu tartamaa kubadda cagta kubadda kolayga iyo ciyaaraha fudud ee dhinaca orodka 342 ciyaaryahan ayaa guud ahaan kubadda orodada 176 ciyaaryahan ayaa dhinaca kubadda cagta ka qayb galaya halka 69 ay kubadda kolayga ka qayb galayaan 70 ay ka qayb galayaan orodada 42 garsoore ayaa ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhexdhexaadinaya kubaddaasi waa uu qabtay ciyaaryahanka xulka gobolka Gabiley ee goolka ugu jira xulka gobolka hawd ayaa kubaddaasi hadda wata xulka gobolka hawd iyo wali kubadda haysta Gabiley baa wali kubadda haysta isaguna gobolka Gabiley waa ku laagay kubadda hase ahaatee waxa qabtay Cabdiqaniyo goolka ugu jira xulka gobolka hawd Cabdiqaniyo ayaa kubaddaasi haysta waxa isku diyaarinaya kubadda dhulka ayuu ku qaraacanaya oo isku diyaarinaya waa laagay laag dheer kubadda bartamaha garoonka ayay gaadhay ciyaaryahanada xulka gobolka Gabiley baa madax ku soo celiyay xulka gobolka hawd Gabiley Messi Mustafa Messi Mukhtar Messi ayaa kubadda wato ciyaaryahanada xulka gobolka Gabiley weerarka uga ciyaaraya waa wata wali saaxiibkii baa u dhiibay kubaddaasi laakiin waa ay baxday kubaddaasi waa ay baxday oo ciyaaryahanka xulka gobolka hawd oo u ciyaaraya baasha bidix difaaca uga ciyaaraya ayaa ciyaaryahanka xulka gobolka Gabiley lambar 9 ka xudhanay weerarka isagoo isla kubadda qaado waxa uu kaga saaray garab inta uu ku tuuray ayay kubadduna baxday laag dheer waxa soo laagay Liban Tifo
ayaan la good baa ku dhuftay madax caadil ayaan la good baa kubadda wata oo dhexda xulka gobolka hawda ayaan la good caadil buu dhiibay caadil kubad baa laagay laaga xulka gobolka Gabiley ayaa kubadda haysta xabadka waxa ku qabtay ciyaaryahanka daafaca uga ciyaaraya xulka gobolka hawd saaxiibkii gadhi roo bidix midig daafaca uga ciyaaraya ayuu dhiibay gobolka Gabiley baa kubaddaasi iska soo qabtay hawd baa kubadda wata hawd kubaddaasi xulka gobolka Gabiley baal ayuu u saaray ciyaaryahanka Xamse Saxardiid Cali la yiraahdo lambar 6 u xidha xulka gobolka Gabiley xulka gobolka hawd ay Gabiley baa hadda kubadda qabsaday xulka gobolka Gabiley hawd baa hadda haysto oo lagu soo laagay kubadda ciyaaryahan yuuyo goolka ugu jira bay u tagtay Cabdi Askariir buu dhibay saaxiibkii buu gacan ugu tuuray kubadda gadhiyan kubadda hawd baa wata weli kabtanka xulka gobolka Gabiley baa kubadda soo tuuray oo ka soo qaaday ciyaaryahan Amiin oo isla kubadda kantaroolo Cabdiriyaad hawd kubadda way iska tuureen ciyaaryahan Xamse oo 6 u xidhan xulka gobolka hawd oo daafaca uga ciyaaraya kubadda ka tuuray hawd baa weli kubadda wata xulka gobolka hawd Amiin Xifsi Cumar Amiin saaxiibka Caadil buu dhiibay Caadil waxa uu celiyay Amiin wuu soo wareejiyay kubadda wuu soo wareejiyay dhinaca dilinta 18 xulka gobolka Gabiley laakiin way iska soo difaaceen laag dheer baa soo tuuray ciyaaryahanada xulka gobolka Gabiley xulka gobolka hawd Libanka Tuso ayaan la good lambar 16 xulka gobolka hawd lambar 18 xulka gobolka Gabiley baa soo difaacay xulka gobolka hawd Amiin Xirsi Cumar xulka gobolka Gabiley baa weli kubadda haysta Gabiley hawd xulka gobolka hawd Amiin Tifo xulka gobolka hawd ayaa weli kubadda maamulaya Amiin Tifo way soo dhiibeen kubadda xulka gobolka hawd aad bay iskugu taataamanayaan waa ay balbalaadhinayaan hase ahaatee kubaddaasi ciyaaryahan ka mid ah xulka gobolka hawd ayaa dhaawacmay kubadduna dibadda ayaa ciyaaryahanka xulka gobolka hawd isagu ciyaaryahanka si dhulka yaalaayay waa ciyaaryahan Amiin Xirsi Cumar oo lambar 7 u sita xulka gobolka hawd oo ah weeraryahanka baasha midig ciyaaryahanka uga ciyaaraya oo ah ciyaaryahan inta badan orod badan oo sameynaya fursado badan oo muhiim ah ciyaaryahanada xulka gobolka Gabiley daafaca uga ciyaarayana ay aad u ilaalinayaan oo ah ciyaaryahankii goolka labaad u dhaliyay xulka gobolka hawd ciyaarta ay la lahaayeen xulka gobolka Sool ee koowaad markan aan dhageystay daawadayaal aan idinku wareejiyo Khalid aad baad u mahadsantahay Maxamed Xamdulle daawadayaal sidaad arkaysaan ba ciyaartu waa eber waana gobolada hawd iyo gobolka Gabiley oo gobolka hawd wuxuu ku ciyaaray garamaanta urudda halka gobolka Gabiley oo ku ciyaaray maryahaas cas ciyaartuna waa eber xatalaan daawadayaal ciyaartani waa ciyaar aad iyo aad u qiimo badan waa ciyaar gobolka badiya oo run ahaantii geli doono diiwaanka ama rikoorka lana ciyaaraha waayo ciyaartan waxaad moodaa inay tahay ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan markaad aragto taageerayaasha dhawaaqa iyo sawaxankii soo gaaraya waa taageerayaasha labada xul gobol ee gobolka hawd iyo gobolka Gabiley imaka tuush kubadda imaka waxa soo laayo goolayaha gobolka hawd yuuyo ayaa kubadda imaka lugta ku haya waa goolayaha gobolka hawd yuuyo laakiin kubaddaasi yuuyo wuxuu uga tegay Xamse Saxardiid kubaddaas garsooraha dhexe ciyaartu waa gacan tuurasho waxa turtay xulka gobolka Gabiley yuuyo ayaa kubaddaasi lugta ku haya waa goolayaha gobolka hawd Cabdiqani Saleebaan Cayoon Cabdiqani yuuyo kubaddaasi wuxuu dhibay Amiin Difo kubadda wuxuu tuuray xagga hore laakiin waxa soo celiyay kubaddaasi lambar 6 xulka gobolka Gabiley waa ninka uga ciyaaraya baasha bidix xulka gobolka Gabiley ayaa kubaddaasi tuuraya Axmed kubaddaasi wuxuu tuuray Cabdiriyaad madaxa ugu dhiyay mar labaad Axmed kubadda uu soo dhex dhigay laakiin Amiin Difo ayaa kubaddaasi soo saaray Sharmaaki kubaddaasi madaxa uu soo celiyay waxa ay kubadda lambar 4 xulka gobolka waa Maarig Dawo
واللمبر أفرت حلك قبل كجبيلي كبدا سدح دايها هابسة غلط أيا قرصورة حدا عيارتو حلقة حلك قبل كجبيلي كبدنا واحد تلا برتمها جرونكا غلط كاسول قال اللمبر أفرت حلك قبل كجبيلي مبارك داو أيا قلب غلط كالو بسلو قال وحنا الله محمد شوفو أيا كبدا سلاريا لمبر سبحيته مكو حلك قبل كجبيلي مارك شوفو أيا كبدا سورتاغن كبدنا واحد تلا برتمها جرونكا وحلاديا لمبر سبحيته مكو حلك قبل كجبيلي مارك شوفو أيا كبدا سلاريا وصولا كبدا مارك شوفو لكن ماذا واحد كسو عليه حلك قبل هود كبدا سو حل عري لمبر أفرته كبدا سو حلو ترى شرماكه يا أخي شرماكه فات شرماكه يا أخي يا والله مر لباتك حلك قبل كهود شرماكه حتى لا شرماكه لا يلاقود لكن لمبر صدح لحلك قبل كا قبيله يسوع علي قدوسو كبدا سو حلو بتاع يلاقود يلاقود حتى لا يلاقود كبدا حكايه يلاقود كبدا سو حتوري امين لكن كبدا سو حلقه تور من اما اوفسايد يا لو قبته حلك قبل كا قبيله وحصل هذا لمبر وحصل هذا انك uga ciyaariyay daafaca hore xulka هود أيها لبوري يمشي أيها لبوري كبدا سايا أيها لبوري كبدا وحيد بشر ما كفاد مرة أخرى لا يا بوري لكن كبدا سوا يا محمد شوف لكن كبدا سوا كديراتي توش باني بحدا مقع عن تورشو وتورن دون حلكو قبل كهود ليبان قدوسو واللمبر لبدا حلكو قبل كهود وحيد باللمبر ستيديو تمك قبل كهود لكن قعن أيكو قبسري لمبر ستيدا قبل كجبيلي رضوان عبدي أيا كبدا سايق عنك كدعي رضوان عبدي أيا عنك كدعي قرصورها دحية عيارته وحد البني كبدا لقول عليها هالكذا كبدا من ديفو سيرولو وشيء قام قرصوره إنه كبدا هالكذا لقوا من ديفو أيا كبدا سمك الأرضية من ديفو وأني كلمك علامة دوقة حلك قبل كهود والله برلبية لباتنك امين كبدا سوحو ترى حق هوري شرما كفاد لكن هو كان ترى شرما كفاد لكن كبداسي مو كغوليسن waxaana uga baxday tuushka gacan tuurashadaana marka waxa tuuran doona xulka gobolka Gabiley lambar 3 xulka gobolka Gabiley مولد وأضي أي كبداسي سو tuuran doona gacan tuurashada مولد oda xaq hore kubada ku soo tuuray Marik Daawo wala barafarta laakiin waxa ka difaacay la bari kubada mar labaad daawo laakiin kubadaas waxa la barsigsiga xulka gobolka Gabiley مرة أخرى شرما كفاد كبدا سوحدي لمبر إيرك واردوان كبدا سوكر لكن بيلعب أيوة كبدا سي مدح كقبتي كبدا سوحة سوكر سامي من هذا العدو لكن قولها أيا سي سالم وقبصدين مدح وكسر شرما كفاد واللمبر لبنك حلق قبلك حود وانا يلي جول كوبل بحول جول كاب ترى يلي كوبل كسو بداس واحد قرب جريسو دي برسل كوبل كاب برسل كوبل دحدا بداس يسر مرفاد عدي لك بداس صار لا 15 كوبل كاب جبيلي قبان وقتي قرصو هذا عيارته سليمان علي ورسمه سليمان كانو ايا قلت كاسل كو غلاي waxaana ku galay shirma ka fuad lambar 20 xulka gobolka lambar 20 xulka
lambar 9 xulka gobolka hawd caadil ayaa qaladkaasi galay qaladkaasna waxaa lagu galay lambar 15 Saleeban Kaalu waa lambar 15 xulka gobolka Gabiley waa ninka uga ciyaaraya lambar 4 ama daafaca hore xulka gobolka Gabiley daawadayaal meel kastoo naga daawanaysan ciyaartu waa eber waana haaf waana dhamaadkii haafka hore ee ciyaarta kubadaas waxa soo tuuray Kaalu laakiin waxa soo celiyay Gaduusa kubadaas ma ka xayal lambar 3 kubadaas laakiin Sharma ka faad ayaa qalad ku galay nimankana waxa la odhan doona xulka gobolka Gabiley ayaa kubadaas la odhan doona waxa la odhan doona lambar 3 xulka gobolka Gabiley Mawlid ayaa kubadaas la odhan doona Mawlid talo kubadaas ma hagaajin doona meesha leedan ma dhigi doona Mawlid kubadaas soo laabay Mawlid laakiin Messi Mukhtar laakiin kubadaas waxa ay goolayo ayaa si sahlan u qabsaday oo aan run ahaantii fursad aad iyo aad u qaaliya kalsoonile kubadaas waxa maraysaa dhexda waxa ay kubadaas caadil wala bar 9ka wala mar Sharma kubadaas dheer ayuu isii u bedel saaxiibkii Aamin laakiin waxa ka difaaca xulka gobolka Gabiley kubadaas cabdirada iyo dhul margdo laakiin Aamin difo wala Messi ala mar laakiin Messi kubadaasi galay Messi waxa qalad ku galay Gaduuso waa lambar 2 xulka gobolka Hawd Liban Gaduuso ayaa qaladkaasi galay Liban Gaduuso garsooraha dhexe ciyaarta ayaa u yeeray Liban Gaduuso qaladka waxa loo qabtay xulka gobolka Hawd ayaa qaladkaasi loo qabtay garsooraha dhexe ciyaarta ayaa doonayay inuu xalliyo qaladka Gaduuso ayaa qaladkaasi xalliya daawadayaal kulanka xamaasadiisa waa kulan ay aad u sareyso guud ahaan tarabuunada ama baydhada daawadayaasha labada kooxood ayaa khaladkaasi dhacay qayle iyo sawaxan isla galay balse ciyaartu sideeda u socotaa khadka dhexe ee ciyaarta ayaa khalad gobolka Gabiley lagu galay garsooraha dhexe oo ah garsoore khibrad badan u leh ciyaarta oo isagu ahna garsoorayaasha hadda ciyaaraha gobolada Soomaaliland haya Yuusuf Maawel garsooraha ugu khibradda badan inta ciyaarta socotay ciyaartooyga ka tirsan gobolka Hawd ayaa la siinay uruda taasina waxay keeneen in ciyaartooyga kale ee kooxda la ciyaaraysa ay kala hadlaan garsooraha taasi ayay taageerayaashu ay moodeen inuu khalad kale amaba taageerada u hayaan gobolkaasi ay iskula kaceen garoonku waa uu degan yahay jawigiisu waa uu degan yahay ciyaartooyga gobolka Gabiley iyo gobolka Hawd oo isku gruubka labaad ka wada tirsan ayaa kulan xiiso badan oo tarabuunada ama baan idhaahdo taageerayaasha labada gobolba ay aad u soo buuxiyeen garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium oo garoonku aad u buuxa taasina ay keentay in sawaxan iyo qaylo dheeraada aad ka maqasho garoonka iyadoo mararka iyo danan sawaxan aad u qurux badan ay isla oogsanayaan tarabuunada labada dhinacba iyagoo qaybaha taageerada kooxda uu taageerayo hees iyo maaweelo uu halkaas uga soo qaadayo ciyaartani daawadayaal labadan gobol dhex maraysa waa ciyaarahoodii labaad iyagoo labadan gobol ay yihiin laba gobol oo ciyaarahoodii koowaad soo guulaystay waxay ka soo kala badiyeen gobolka Sool iyo gobolka Daadmareed Gabiley oo ka soo badisay gobolka Daadmareed halka gobolka Hawd uu ka soo badiyay gobolka Sool waxa lagu loolamayaa waa dhibcaha groupiska inta lagu jiro kooxdii noqon lahayd kooxda hogaaminaysa groupka saddexdan dhibcoodna qaadan lahayd iyo saddex dhibcood hore u haysato sidii 6 dhibcood oo haysato gobolka Gabiley waxa uu harsan gobolka Sool halka gobolka Hawd uu harsan yahay gobolka Daadmareed waa laba kulan oo adag Daadmareed waxa ay sidoo kale kulankii kan ka horeeyay ay ka badisay gobolka Sool oo keenay in gobolka Daadmareed oo laga badiyay 3 dhibcood sida uu yeeshaan rajo ay weli gobolka Daadmareed uu leeyahay oo waxa uu sugayaa labadan kooxood oo uu la yeelan doono kulanka saddexaad gobolka Hawd
qadar daqiiqada ayaa wada tashi kooxaha uu garsooraha ciyaarta dhexe uu siiyey si xamaasada kacsan ee ciyaartooyga dhexdooda daawadayaal kulankani sidii laga filayay muu noqon laba gobol oo waaweyn ayaa ciyaarayay ciyaaro aad u qurux badan ayaa la sugayay laakiin ciyaartu waxay isku bedeshay inay caadifada ciyaartooygu labada dhinacba ay kacsan tahay taasi oo keentay in khaladaad badan uu kulanku yeesho taasna waxaan odhan karaa waxaa sababay ay kala baqayaan inay kooxba kooxda kale taasi waxay u sahlaysaa daawadayaal maadaama labada kooxoodba ciyaartooygooga kala duwanay inay dhibcaha kulankani ay yeeshaan inay ka baqaan in kooxda kale ay gool kaga horeyso ciyaartooy badan ayaa intii kulanka lagu jiray dhulka jiifsaday oo u badan yihiin gobolka hawd gobolka gabiilayna ciyaartooy badan ayaa dhaawacyo soo gaadheen laakiin haddana waxaad moodaa ciyaartooyga gobolka hawd oo tarabuunadu aad ay ugu qaylinayaan in iyaga laftarkoogu dareenkoogu uu ka kacsan yahay gobolka gabiilay halka gobolka gabiilay ay isku dayayaan inay isdejiyaan kubad degan oo ay mararka qaarkood kubad si qurux badan iskula helaana ay samaynayaan labada kooxoodba ciyaartooyga ciyaaraya waa ciyaartooyo rug cadaaya oo ka soo ciyaaray ciyaaraha gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland goboladii kulamadii ka horeeyay ka dhacay amaba ay dhahdee kuwii ay ku guuleysatay labadii jeer ee ugu dambeeyay gobolka Murudijeex iyo gobolada kaleba gobolka Gabiile iyo Hawd waxay ka mid yihiin goboladii ugu dambeeyay iyagu ciyaaraha gobolada Soomaaliland iyagu intii dambe markii la kordhiyay 8 gobol ee hore ciyaaraha gobolada Soomaaliland u ciyaari jiray labada gobol ee ugu awoodda badan inta badan iyagu ciyaaro qurux badan soo bandhiga gobolka Hawd isagu waxa uu ka mid yahay gobolka laba jeer ciyaarihii ugu dambeeyay final amaba kulanka ugu dambeeya ay kaga guuleysteen gobolka Murudijeex halka gobolka Gabiile oo sanadkan aad moodo inay si qurux badan ay isku soo diyaariyeen ciyaartooduna ay tahay ciyaar isku xidhnaansho ciyaartooyga dhexdooda ka muuqata ay tahay mid adkaysay gobolka Gabiile maadaama oo kulankii ka horeeyay oo la ciyaareen gobolka Daadmareed ay ka badiyeen kulankaasi oo 2 gool iyo 1 ku soo afmeeray ilaa hadda daawadayaal kulanka ayaa loo diyaar yahay garsoore Yuusuf Maaweel inuu bilaabo ciyaartuna ay halkii si socoto qaarkaasna lagu dejinayay dareenka ciyaartooyga oo ka dhacay garoonka Awgeed ciyaartooy kasta oo istuurayo u sameeyo inuu ciyaartooyga gobolka kale casaanka si uu ciyaarta ugu awood badnaadaan markuu ciyaartooy gobolka kale ka baxo laakiin taas ilaa hadda waxaa garsooraha Maaweel ee kulankani haya ciyaartooyga gobolka Gabiile ayaa hadda laagan doona Maxamed Jufay Miisi wallahi kubadaasi laakiin waa idil martay Warig Miisi waa ciyaartooy afka hore uga ciyaaraya gobolka Gabiile kulamada ugu badan ee ciyaaraha gobolada inta gobolka Gabiile uu ku jiray sanadadii ugu dambeeyay Amintivo waa ciyaartooyga hadda kabtanka xidhay markii Cabdiraxmaan Ilkaas uu dhaawac kaga baxay garoonka gobolka Hawd ayaa hadda kubadda daadiinaya yooyo oo ah ciyaartooyga hadda ugu xariibsan gobolka Hawd ama baan oran karo goolwadaha ugu wanaagsan goolwadayaasha hadda ciyaaraya maadaama uu inta kulan uu ciyaaray kubada aad u tiro badan uu ka badbaadiyay goolka gobolka Hawd intii kulanka lagu jirayna kubad aad u qurux badan ay kula soo baxeen ciyaartooyga gobolka Gabiile ayaa badbaadiyay Gabiile ayaa soo tooratay Cabdirayaad Maxamed Cali wasana kubadaasi laakiin kubadaasi toos ayay u ilaalinayo sida caadada ah ciyaartooyga laaga dheer inta badan difaaca uga soo isagu ee kabtanka hadda u xidhan ayaa isagu kubadaasi soo laagaya aad moodidba in kubadda uu laaga ay dhinaca kale u dhaafayso ayaa la good ayaa kubadaasi qabtay ciyaartooyga lambarka 8 gobolka Gabiile u xidhan laakiin kubadaasi uu dhiibay waxa soo cararay gool wada yooyo oo kubadaasi Cabdirayaad iyo waxa isku eeriyeen kubadaasi laakiin afka hore dhigay Mubaarak oo afarta u xidhan gobolka Gabiile Mubaarak ba kubadaasi haya Mubaarak kubada u jeedinaya gobolka Gabiile oo gobolka Gabiile laakiin khalad Gaadiyar ayaa ciyaartooygaasi oo kubada iyo soo jiitay khaladkaasna waxa la qabtay ciyaartooyga gobolka Gabiile markale ay ciyaartooyga gobolka Gabiile oo aad moodo hadda inay fursad helayaan amaba ay kubadda halkooga ay khaladaad badan ay ka helayaan gobolka Hawd intii ugu dambeysay ciyaarta
oo kubaddaasi ay laaganayaan maxamed jufo ayaa dul taagan oo ciyaartoy da'yar sanadkana ah ciyaartoyga halka dhexe ee gobolka Gabiley ugu muuqda oo kubadaha ama khaladka helaaga horta isagu inta badan dul taagan maxamed jufo ayaa karasay Messi laakiin difaaca ayaa la good ayaa la bari ayaa la daadine ayaa waxa uu kamid yahay hadda ciyaartoyga u ciyaara kooxaha qaranka Soomaaliland ciyaartoyga Soomaaliland ugu wanaagsan ee hadda soo kacay ayaa la good isagu laftarkiisu ciyaartoy aad u tayo sareeyo oo kubadooda iyo xirfadooda sareyso ayaa kulankan isku haleelay taasi ayaa keentay in goolal badan ay iman waayaan maadaama ciyaartoyga kale uu garanayo gaariyar oo lambarka shanaad gobolka laakiin Cabdiriyaad ciyaartoyga Maxamed Jufo ayaa kubadaasi haya Maxamed Jufo gobolka Gabiley Maxamed waa u soo jaray oo ciyaartoyga difaaca gobolka Gabiley bartamaha garoonka keenay Tifo ayaa head dheer ku soo celiyay ayaa la bari ayaa hireeyay oo gobolka Gabiley daawadayaal kubadda wali halka gobolka Gabiley waxa uu dhigay Mubaarak gobolka Gabiley gobolka Gabiley ayaa la god Messi gobolka shanaad abartayo kubaddaasi uma suurtagal ciyaartoyga lambarka afraad u xidhan gobolka Gabiley Mubaarak daawada ayaa la good waxa uu kamid yahay gobolka Haw marka afraad xidhay ciyaartoyga sheegayay inuu ciyaaro kooxda heerka goowaad ee aan idhaahdo qaranka ciyaartoyga ciidanka qaranka ayaa uu ka ciyaartoy aad khibradiisu u sareyso sanadada dambe ciyaartoyada hogaamiya ciyaartoyga ugu wanaagsan amaba sanadkanba ku soo bixi kara tayada kubadeed ee lugtiisa ku jirta gobolka Gabiley kabtanka gobolka Gabiley Daylaad ayaa kubaddaasi soo dhigay oo isaguna ciyaartoy rugcada ah inta ugu badanna kubadda gobolka Gabiley u diiday in gool wadahooga ay gaadho mana Amin Divo ayaa soo celiyay Sharmaake waxa uu dhiibay Gaduuso Sharmaake lambarka 20aad gobolka Hawd Sharmaake si qurux badan buu daadajinaya Hamse lambarka 6aad gobolka Hawd dibay kubadda Amin Divo ayaa kubadda alla hadda daadahsanaya Amin waa uu soo laagay sidii caadadiisa ahayd kubaddaasi عادل difaaca gobolka Gabiley ayaa si qurux badan kubaddaasi uga saaray caadil kubaddaasi isaga goolwadaha ayay u dhaweyd in goolkaasi uu uga faa'iideyn karo gobolkiisa laakiin difaaca gobolka Gabiley ayaa kubaddaasi isagu ka diiday dibaddana uga saaray waxa kubaddaasi hadda gobolka Hawd ayaa soo tuuranaya gobolka ciyaartoyga lambarka 2 u xidhan waa uu soo bandhigay tuuray khalad ayaa la good oo gobolka Hawd lagu qabtay difaaca gobolka Gabiley ayaa kubaddaasi dul taagan soona laaganaya kubadda waa bilaabay Maxamed Jufo oo lambarka 13aad Maxamed Jufo gacan tuurasho Sharmaake Hididi Sharmaake Cali Xamari ayaa dibadda u saaray ciyaartoyga khadka difaaca ee baasha mid ka ciyaaraya ayaa laakiin waxa uu yiri garsooro waa khalad ilaa hadda ma kala cad gacan tuurasho ayay noqotay gacan tuurasho Mubaarak kubaddaasi loo dhafaayay Mubaarak gobolka Gabiley Mubaarak kubaddaasi sakarasay khalad Messi goolwadaha gobolka Hawd ayay kubaddaasi isku dhaceen isagoo Mubaaragna doonayay in kubadda uu qaato ayaa goolwada Yuyo oo la socda dhaqdhaqaaqa ama meel kasta ay marayso kubaddu isagoo ay isku dhaceen kubaddaasina khaladkaasi waxa loo dhigay goolwada Yuyo Cabdiqali Saleebaan Caynaan ayaa kubaddaasi khaladkaasi loo dhigay oo gobolka Hawd ayaa hadda soo laagan doona daawadayaal ciyaarta quruxda badan ee tarabuunada aadka u tirada badan amaba intii ciyaaraha gobolada Soomaaliland ay socdeen uu kulankan yahay kulankii ugu daawashada badnaa dhinac kasta oo garoonka kamida waa uu buuxa qofna ma haysto meel uu fadhiisto inta badan qaybaha qaar waa la taagan yahay Maxamed Jufo kubaddaasi waa uu soo horeeyay Amin Divo iyo Maxamed Cali Amin waa uu soo laagay ciyaarta haafkii hore ee ayaa sidaasi ku dhacay ciyaartu waxay ahayd ciyaar sidaad arkaysaan ciyaartooyadu hadda si qurux badan ayay isku soo gacan qabteen oo u soo wada baxayaan kulankana waa xamaasadiisa iyo xiisadiisa
ciyaartu inoo bilaabmi doontaa waa haafkii dambe ee ciyaarta gobolada hawd iyo gobolka gabiil ay ku dhex maraysay garoonka Hargeysa Stadium waa ciyaartii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnaa marka loo eegayo taarabuunada taageerayaasha labada dhinac ee ka soo qayb galay iyadoo ilaa haatan laygala soo hadlay meelo badan oo caalamka oo labada xul ee taageerayaasha ku kala sugan dunida ay ku kala daawanayaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland hadda si toos ah uga socda garoonka Hargeysa Stadium dalka Malaysia oo ay ku sugan yihiin asxaab badan iyo taageero badan oo xulka gobolka Gabiilaya ayaa hadda ii soo sheegay oo Cali Baxsane ka mid yahay inay hadda ciyaarta si toos ah uga daawanayaan shaashado waaweyn oo iyagu lagu xidhay ciyaartani gobolada hawd iyo gobolka Gabiilaya ku dhex maraysa sidoo kale taageerada xulka gobolka hawd ee daafaha caalamka kala jooga ayaa hadda si toos ah u daawanaya ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo muraayado waaweyn ama shaashado waaweyn ka daawanaya kolba halka ay joogaan gobolada ay labada xul ka soo kala jeedaan gobolka magaalada Baligubadle ee xarunta gobolka hawd iyo sidoo kale magaalada Gabiilaya ee xarunta gobolka Gabiilaya shaashado waaweyn lagaga daawanayo ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo maanta ay laba آمين لكن دفاع حلك قبل كجميل هي كبدها سيك دفاعي وعلى هذا وسرونه شيغين كبدها سيك بحري او والي دورو ان قولوا حلك قبل كجميل نصر الدين هي كبدها سيك والي دورو وقولوا حلك قبل كجميل نصر حلاقه ayaa ku qabtay xulka gobolka Gabiilay lagu galay waxaana kubadaasi lagu laagi doona dhanka gobolka hawd ayaa kubadaasi lagu laagi doona waa walaahay waa usigda dusha sare ee goolka ayaa umriyay dawal warfidiyeena badan ayaa igula sagan garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa soo tabiyaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland aan Ridwaan Ciidid soo halkaas inooga soo maqaado khabar ciisan tahay garoonka Hargeysa Stadium ee caasimadda Hargeysa degmada Axmed Dhagax ayuu ku yaalaa jihada ayuu kaga yaalaa caasimadda Hargeysa waa garoonka ugu weyn ee Soomaaliland ee kubadda cagta lagu ciyaaro roog ama artificial grass ka waxa loo yaqaano ayaa ciyaar xiiso badan ayaa haafkii dambe imika u bilaabmatay oo dhex maraysa xulka gobolada Gabiilay iyo xulka gobolka hawd waana eber oo labada kooxood wax gool ah ma ay kala dhalin xulka gobolka hawd Dirays Huruuda oo sharabaadada surwaalka iyo garabkuba ay isku egyihiin ayay ku ciyaarayaan halka xulka gobolka Gabiilayna ay ku ciyaarayaan Dirays Cadaana waxa xusuudan in ciyaartani ay ka mid tahay ciyaaraha ugu adag ee Soomaaliland markii ciyaaraha gobolada isku beega la soo saaray ama isku aadka gruubada la soo xulay ciyaar la hadal hayay oo inta badan dadka reer Soomaaliland ay lahaayeen todob dhibcan nooceeya ayay ku dhamaan doontaa ciyaarta dhex mari doonta xulalka gobolada hawd iyo Gabiilay waa laba kooxood oo gobolada ay matalayaan ay yihiin goboladii dambe ee Soomaaliland haddana waa gobollo kubadda cagta taariikh ku leh oo inta badan ciyaartooyada Soomaaliland ka ciyaara gobolada inta badan lagu xusuusto oo ay ka mid tahay gobolada lagu majeertay inay kubadda ku wanaagsan xulka gobolka hawd waa tartankiisii saddexaad ciyaaraha gobolada ah ee uu ka soo qayb galo labadii hore ee uu ka soo qayb galay sanadii 11 iyo 13 ciyaarta kama dambaysta buu yimi Gabiilay takeedii shanaad ay noqonay gasho garoonkan ayaa qeynaya sawaxan iyo buuq badan garoonka lagu ciyaarayo jihada hawdka ama koonfurta loo yaqaano waxa ku jira xulka gobolka Gabiilay halka xulka gobolka hawdna ay ku jiraan jihada waqooyi ee garoonka shirkadda isgaarsiinta ee Samtel ayaa internetka awoodda badan ee suurtageliyay inaad meelo badan idinkoo ku sugan aydu kula socotaan ciyaarta xiisaha badan ee garoonka Hargeysa Stadium ku dhex maraysa xulalka gobolada Gabiilay iyo xulka gobolka hawd
hawd waxa goolwadaheeda ah oo shabageeda ilaaliya ka cabdiqani salebaan caynaan yuuyo waa goolwado wanaagsan oo in badan kubado badan badbaadiyey kubado badan oo halis badan oo weerarka xulka gobolka Gabiley ay soo qaadeen nin diiday inay wax gool ah isku bedesho ciyaarta oo sawaxankeeda iyo xamaasadeedu aad u sareeyo كاي كبدو بحلي حلك قبل كهود أيا صوت ورانيا halka daafaca midigta uu ka ciyaaray Aamin Maxamed Cali Aamin Tifo waa ninka ugu safashada badan ciyaartooyda hawd ku jira oo ciyaaro badan soo ciyaaray xitaa wuxuu ka soo saftay horyaalka dalka shaarka nahay ee Djibouti waa nin cag badan in badan ku soo jiray waxa numberka afraad ugu ciyaaray xulka gobolka hawd Xamse Saxardiid Cali numberka 6 ayaa fanaanadiisa ku qoran Liibaan Ibrahim Colaad numberka 2 ayuu ka ciyaaraya waana daafacida ugu wanaagsan ee baalaha ka ciyaara Cabdicasiis Caawil Garaad waa numberka 5 ee xulka gobolka hawd عبدالرحمن جامع موسى ديلواد وكابتن كحولك الجبيلي ودافع ugu adag ee daafaciyada ciyaaraha gobolada ku jira waa nin dheer oo kubada badan difaacaya in badan isku xiraya in badan kubada Gabiley kamida meelaha ay ka socoto Umar Ali Ismaan Jufo waa numberka 6 ee xulka gobolka Jufo Gabiley numberka 6 ayuu sitaa Cabdirasaaq Cabdi Abshir Cabdirasaaq Cabdiriyad numberka 22 waana numberka 9 buu ugu ciyaarayaa waa ciyaarihii gobolada hore u ciyaarayay marka labadii tartan ee ugu dambeeyay laga reebo xulka gobolka Maroodijeex waa mid kamid ah baliyaasha ugu wanaagsan ee gobolada Soomaaliya lagu xusuusto Maxamed Cabdi Xasan Ridwaan Cabdi Aadan Galoole numberka 8 ee xulka gobolka Gabiley Mubaarak Maxamed Cali Daawo numberka 4 ayuu xiran yahay xulka Gabiley waa ninka baasaska ugu badan iyo dhaxda ugu badan aad moodo xulka gobolka Gabiley ragga ay la soo shurtageen waa ragga waraabinaya ninka Mubaarak leeyahay weerara Mubaarak Cabdirasaaq Xasan waa weerarka ugu wanaagsan ee Gabiley Mubaarak waa nin dheer oo madow kubadda marka uu cagta ku dhigo daafaca hawd waxaad moodaa inay badan ilaalinayaan baas Cabdiriyad intuu laba difaac dhexdeeda ku maamushay kubad awood badan tuuray laakiin Cabdiqani Salebaan Caynaan yuuyo gooladaha hawd ayaa diiday kubad dheer weerarka Caadil iyo daafaca Gabiley numberka 15 Salebaan Cabdi Warsame Kaanu ayaa Caadil ka diiday hawd baas dheer ayuu tuuray laakiin way baxday tuura gacan xulka gobolka Gabiley ayaa tuuranaya Dayload oo kabtanka xulka Gabiley ayaa kubadda banaanka ka soo qaadanaya uu tuuray waxa soo laaganaya gool wada xulka Gabiley Nasruddin Cabdi Xasan Nasruddin Dayload bas Dayload ayuu tuuray Mubaarak weerar Mubaarak tuura gacan banaanka ayay u baxday tuura gacan ayaa soo tuuranaya xulka Gabiley numberka 16 inanka fanaanadiisa ay ku qoran tahay Axmed Salebaan Maxamuud Xareed tuura gacan si sharci ah uu tuuray Aamin Tifo baas
ودافع أيان لقود أيان لبري نمبر كافات كبير قروح بينك وحرقوني ساعين كيلو تورا عبد العزيز كرير عادي نمبر كسجالان هود عادي لبيع يرتي لكن دولة عاد أي كدينا دافع عقوان يحوك قبل كجميل النمبر كشراب تاجن تورا جعان أيك بدو توري قرير عبد العزيز كرير نمبر كشجالان هود أيان لقود نمبر كل احتمال حريت أيها صوع علي تورا جعان عبد العزيز كرير والنمبر كشراب يحوك قبل كهود أي كدينا أيان لاب قلب ayaa lagu galay ayaa la good xareed ayaa riixay sidaana calawadaha labaad ee ciyaarta ayaa qabtay qaadka waxa tuuranaya nambarka 20aad ee xulka gobolka Hawd Sharmaarke Fuad Ali Sharmaarke ayaa laag dheer isku diyaarinaya cross madax laakiin Nasruddin ayaa gacanta ku qabsaday goolaha xulka gobolka Gabiley fanaanad buluuga oo surwaal madow ayuu xiran yahay gacmihiisa ama golfsada gacmaha ku xiran yahayna waa midabka akhtarka ama greenka loo yaqaano kaalu nambarka 15 ee Gabiley ayaa la good nambarka 4 waa laga qaaday weerarka Gabiley Cabdiriya iyo nambarka 9 لكن حمزة أيها بنانك كتوري حمزة والنبرك اللي حالي هو صدح يتمن قبيلي شوفوا عبد العزيز قرير يا مبارك ايش كويس قرير باس صاحبكي شرماركي أيها لقو أيها لبري لا ملح نبرك صدح يتمن شوفوا غلط أيوة قبط يوسف ماويل قرصوراها عيارته دحدحادية نمبر كأفراد نيكا يكون قرطه ويرر كورو عياره مبارك عبد الرزاق حسن أيادوك يالا شوفوا صدح يطبن قبيلي إنا كوي حرن يدول على عياتوغا نوكا شفاء مبارك حالتي سعافمان يدينه يحقه وكعبنا labada qacmood oo qabtay ayuu dhulka ka kiciyay mubaarak waa wariyaan halis badan oo kubadda markay cagtiisa soo gasho daafaca gobolka Hawd in badan ay isku dayaan inay 2 iyo 3 ba ku raacaan sidii ay kubadda uga reebi lahaayeen waa nin ordaya in badan kubadda haysanaya ilaa iyo bilowga ciyaartana wuxuu kamid yahay ninka fursadaha ugu badan Gabiley oo horseedaya oo u abuuraya Cabdiriyaad Laadbeer nambarka 8 ee xulka Gabiley daafaca gobolka Hawd شرماركي أيا سوق روح بين لعب توقو كنترولي صاحبكي عبد العزيز قرير أمين تيفو قرير أيا لقو عبد الرياض شرماركي فؤاد علي شرماركي نمبر كلاباترات كروس دار يوتور أمين لكن كانوا نمبر كشلتمناد أيا ما يحكسوا عليه نمبر كل حاجة قبيلة باس نمبر كسلالة مبارك نمبر كسيديان حولك قبل كجميل قولوا يليو أي سوق روح بين وقبس لكم بدأ ساعين كانوا تورا نمبر كسيديان هاو رضوان عبد البارود آمين نمبر كتدماد هاو مين وريهنا يقول عيسى الله انت وش ربناك صادق حيات أيها كد نمبر كسلالات الجميل مختار عبد الرزاق حسن ماسي وحال سو بدلوا عيارته لسوق لي نمبر كاللي طبناد حلكا هاو فتحي اسماعيل حلكا قبل كهاو وعيارته كسو حاجي لبدا كوخو واسكو اود marka laga tago waayo weerarada googooska xulka gobolka Gabiley ay qaadayaan hawd kubadeedu xagga dambe iyo dhexda ay ka socotaa waxay ku ciyaarayaan 4 difaac 3 dhaxa iyo 3 weerar xulka gobolka Hawd Gabiley 4 difaac 4 dhaxa iyo 2 weerar ay ku ciyaarayaan mubaarak iyo Miisi Mukhtaar Miisi ayaa labada weeraryahan ee Gabiley
afka hore u taagan cabdiriyaad waa nambarka 9 ninka ugu ciyaaraya 22 ayuu xulka gobolka Gabiley u xiray goolasha ciyaartii hore waa ninkii u saxay labadii gol ee ay Gabiley daad mararka ka badisay telefishinada badan oo luqadda afka Soomaaliga ku hadla ayay kala socotaan baraha ay bulshadu ku kulanto Facebook iyo muuqbaahiyaha YouTube kaba real video ay kala socotaan shirkadda isgaarsiinta ee Samtel ayaa internetka awoodda badan ee ku gudbaysa ciyaartan tooska ah suurto galiye nambarka 18 ee xulka gobolka Hawd Xamse Kaysa Suldaan ayaa ciyaarta laga soo bedelay hawlwadannada caafimaad ee bisha cas ayaa adeeg caafimaad u sameeyay ciyaartooyga la bedelay oo dhaawac lugta ka soo gaaray ka cabanaya Fadxi ayaa galay Gabiley Korne Cabdiqani Salebaan Caynayo ayaa gacanta si qurux badan u qabsaday bartanka garoonka ayuu ku tuuray daafaca Gabiley ee kubadda iska celiyay Hawd baas dhaadheer Hawd Ridwaan nambarka 8 ee Hawd Ridwaan nambarka 2 ee xulka gobolka Hawd Ridwaan ayuu celiyay nambarka 8 Ridwaan ayaa daadisanaya daafac nambarka 3 ee xulka Gabiley Mawlid Cabdi Xasan Oday ayaa kubadda tuura gacan u saaray nambarka 2 ee xulka gobolka Hawd Liibaan Ibrahim Colaad Messi Gabiley Xamse Hawd tuura gacan Messi ayaa haysta uu dhiibay dhulka ayuu iska dhigay nambarka 3 ee Gabiley daafaca uga ciyaaraya oo Oday lagu naanayso tuura gacan sharciya nambarka 13 ee Gabiley ayuu u tuuray Oday nambarka 3 ee daafaca Mubaarak Cabdiriyaad kubad daafaca Hawd soo dhaaftay ayuu ka faa'iideysan karaa kadib markii uu istaajin kari waayay ama uu maamuli kari waayay iyadoo calaamaduhuna uu offside qabtay iyadoo Cabdiriyaad kubaddaas ay dhaaftay nambarka 8 ee xulka gobolka Gabiley ayaa dibadda la soo dhigay Khabiir Mustafa ayuu soo galiyay oo nambarka 20 Gabiley u xiran nambarka 8 uu soo saaray 3 weerar ah oo ay Gabiley ka soo dhigay oo tababaraha leelinayo Cabdiraxmaan Awga lagu magacaabo oo nin kubadda cagta in badan ciyaari jiray 3 weerar ah oo waxaad moodaa weerar badan oo Gabiley qaadayso inuu soo xoojiyay iyadoo tababaraha Gabiley ay ka muuqato markuu shaxda uu ku soo galay iyo ciyaartooyga uu soo galiyay la eego inuu doonayo inuu goolal badan keensado oo ciyaartan eberka wax ka bedelo weerarkiisa ayuu xoojiyay Hawd tababaraha watana dhexda ayuu kubadda focuska ama muuqa saaray ama awoodda oo kubadda dhexda ayuu ciyaartooyda uu soo bedelay u badnaay Messi nambarka 9 ee xulka gobolka Gabiley Mustafa oo badal ku soo galay ayaa weerarka hore u tagay xulka Gabiley Ridwaan nambarka 8 ee Hawd Ridwaan 3 nin inta uu dhaafiyay ayuu kubaddu banaanka u baxday waa tuura gacan ciyaarta xisaab badan ee garoonka Hargeysa Stadium ku dhex maraysa xulalka gobolada Gabiley iyo Hawd waa eber qaybtii dambe ciyaarta ayaa socota gobolka Gabiley magaalo madaxdiisu waa Gabiley halka gobolka Hawd magaalo madaxdiisu ay Balligubadle tahay Balligubadle waxay caan ku tahay halgankii loo soo galay jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland oo 25 sano jirtay halka Gabileyna ay caan ku tahay wax beerista waa deegaan wax soo saar min koob ayaa garoonka kaga jira iyo tababaraha maamulaya 12 qof mas'uuliyadda gobolka ayay saaran tahay 9 daqiiqo oo ciyaartani ay socoto laba lugo ama laba dabal ay ciyaartooyga nambarka 16 xulka gobolka Hawd u xiran Fadxi la haafka dambe soo galay uu ku tuuray laakiin goolwadanu Nasri oo Gabiley waardiye goolkeeda ka ayaa gacanta ku qabsaday tuura gacan ayay u baxday labada tababare ee kala maamulaya ama
kala wata ama kala leeyaya ama macallimiinta carbiska u soo samaysaya xulalka gabiiley iyo hawd labaduba garoonka ayay taagan yihiin xamaasad badan kama muuqato mid kasta intuu qacmaha dhararsaday ayuu natiijada ciyaarta ka dhursugaya isha unbuu garoonka saa ugu hayaa daawadayaasha la socda ciyaarta xiisaha badan ee garoonka Hargeysa Stadium u soo daawashada tagay daawadayaasha iyo taageerayaasha garoonka fadhiya qof kasta sawaxankii iyo qeynadii inta uu joojiyey labada dhabanood qacmaha saaray ayuu ciyaarta daawanaya dowlaha daafac nambarka afraad ee weerar baas dheer oo furfuran ayuu tuuray koornaha kale ayuu kubadda u geeyey Messi gabiiley Messi saddex ciyaartooy ayuu xafad ugu jiray laakiin daafaca dambe hawd ayaa ka soo diiday xamse fadxi ridwaan gabiile mubaarig maxamed cali daawo waa nambarka afraad ayuu xidhan yahay laakiin weerar ayuu ka ciyaarayaa khadar ciiso agteeda fadhiya balaan ku wareejiya ciyaarta siduu halkaa uga sii wada daawadaya ridwaan caydiid aad baad u mahadsan tahay daawadayaal weli waxaad si toosa u daawanaysaan ciyaaraha gobolada Somaliland wareegooda labaad oo ciyaartii saddexaad ay maanta ku dhex mari doonto gobolada hawd iyo gobolka gabiiley ciyaarta aad u xamaasad badan labada ciyaaryahan ee labada xul u kala ciyaarayaan ay yihiin qaar loo lagu jira sidii ay tartanka guusha ee ciyaartani ay ugu qaban lahaayeen mid kasta waxa uu dareenayaa oo weerar ku haya goolasha labada xul hadda ciyaarta xanaaqad ayaa lagu qabtay xulka gobolka hawd waxaana ku laagi doona dhanka xulka gobolka gabiiley xulka gobolka gabiiley ee kubaddaasi xanaaqada lagu galay oo sirwaduhu uu ku qabtay ciyaartu hadda ayay si toosa ay u socotaa waxaanad ka daawanaysaan daawadayaal dhammaan telefishinada ay ka midka yihiin telefishinka qaranka Somaliland bulsha TV SBC iyo Somaliland Special laakiin gobolada Yuyo ayaa kubaddaasi si qurux badan u qabsanay gobolada Yuyo gobolada xulka gobolka hawd isagu fanaanada xogkoobaad xulan xulka gobolkiisa shirkadda isgaarsiinta Samtel ayaa inoo fududeysay inaan maqalkayga codkayga iyo daawashada ciyaarta garoonka Hargeysa Stadium idin soo gaarsiiso halka idin ka soo tabinayso shirkadda Real Video 16 xulka gobolka gabiiley Axmed Salebaan Maxamuud Xareed ayaa kubaddaasi gacan tuurashada waa tuuray ayaa le sharmaaka faan sharmaaka yaqi laakiin lambar 6 xulka gobolka gabiiley waa ka qabsaday Khabiir Mustafa wasaw waa ninkii ka soo galay kubaddaasi shoot ku laagay laakiin waxa gacan ku qabsaday gobolada Yuriyo aamin la barto dabada xulka gobolka hawd aamin laakiin lambar 6 xulka gobolka gabiiley waa uu ka qabsaday daawo sharmaaka faan sharmaaka yaqi difaaca xulka gobolka gabiiley waa ka qabteen kubaddaasi lambar 13 amba fanaanada 13 ninka u xulan xulka gobolka ayaa qabtay waa ninka la yiraahdo Maxamed Cabdi Xasan Jufo weerar gabiiley Messi laakiin difaaca aamin Tifo ayaa kubaddaasi qabtay aamin Tifo waa qof kubadda waa Jufo Xareed lambar 16 xulka gobolka gabiiley Xareed madax laakiin waxa kaga difaacay Xamse ayaa la bari aamin lambar 7 xulka gobolka hawd waa faraska dheereynaya ee baasha 7 ugu ciyaaraya waa dhaafay kubadda qurux badan oo soo saaxday waa dhaafay mar kale laakiin kubaddaasi waa ay ka baxday aamin lambar 7 xulka gobolka hawd oo isagoo ninka weerarka ugu soo qaaday gobolka gabiiley waa ninka baasha 7 ama fanaanada 7 u sita xulka gobolka hawd Salebaan kalluun ayaa kubaddaasi soo laadi doona
سليمان كلون برتك جول كايا بجرون كايا وصوب دحدغاي ايا لا بري اخ ميسي لكن حمسه لمبر لحله حولك جبل كهود حمزه سحرديد علي ايا كبدا سكي دفاعي حريد لمبر لحيه 10 ايا لا غعنتاس تورن دونا حريد دغي صاحبكي خبير حريد او توري شرماكه فاضي كبدا سو صدق لكن لمبر لحله حولك جبل قبيلي waa iska difaacay kubadaasi waa shufax xulka gobolka hawd aamin ayuu soo dhigay laakiin sirwada waxa uu qabtay Yuusuf ayaa qabtay kubadaasi xanaaqada ayaa ku qabtay xulka gobolka Gabiley waxa laadi doona oo loo laadi doona dhanka xulka gobolka Gabiley آمين أحمد توفو عياريان ككابتن كلابادو حلقة قبل كهود وسوى نك وجوين أما عياريان كوجوين حلقة قبل كهود وياكو بدأ في سولار الدوراء آمين أحمد توفو وحاولوا عياران قبل وسمى الله كسر آمين أحمد توفو لكن نصر الدين قالوا حلقة قبل كجميل وياكو بدأ في قبطي نصر الدين وياكو بدأ في قبطي شوت كان بوا حوق الله قديرة وصل آمين أحمد توفو كابتن حلقة قبل كجهود فضحي ويسوي نجيب غلبات صقري مرة بعد وعاكو بدأ قعنتا كو قبصري نصر الدين عبد حسن نصر الدين والله عليكم بدأ سي نصر الدين والله عليه لكن مدى حلقة قبل كهود ويسكي دفاعي أيالا بري أيالا قط أيالا جود آمين يا أودي كبتاسي آمين يا أودي لكن دفاع حلقة قبل كهود يا جميل يا اسكت دفاع كبتاسي ويصل على دونا حلقة قبل كهود ويصل على دونا حلقة قبل كهود صراحة بدنا يا طاوله سيده دقيقه مقايا كسو يا garoonka Hargeysa stadium magaalada Hargeysa iyadoo taageerayaasha labada xul ee gobolada Gabiley iyo gobolka Cawd ay wada dhiirigelin saaxib mushaharba ay siinayaan xulalka ay kala taageerayaan waa ciyaartii ugu xamaasadda iyo xiisaha badnayd intii uu socday kulanka wareegga labaad ee ciyaaraha gobolada Somaliland oo labadan xul ay noqonayaan labada xul oo ciyaaryahanada ugu fiican ay ku jiraan حلاقة يا وسيرمون يوسف وكوكب عيارتا ورجل روح البدول الجميل حلقة قبل كهود وياكم بس شاء الله الدورة آمين أحمد توفو كابتن كلامي حلقة قبل كجميل حلقة قبل كهود أنا نعمه وياكم بس شاء الله الدورة آمين أحمد توفو وصار يكون هذا الدور لكن هذا يا ملح دفاعي سيروان يوسف وحاو مركز لقبتي حلاقة لقو قلو حلقة قبل كجميلي موليد عبد حسين أوضي أياكو بدأسي إنقسطاء من واو صلاح يعينه ووادا أوضي واو لاقي عزيز قدر ياكو بدأسي كسول هذا حلقة قبل كهود آمين أيام بركة وفرس كدير يا لبرت دور لكن الله قعن أيام كوكب سنة مركي وقاري وايي وعلى وسيلونا يوسف وكان ورودا بالدقنين وتاغي نيكا يساقوا فرادة وعاد
good hurre ayaa uu sirwada Yuusuf uu sii kaarka uruuda hal mar hadalku ma jiro daawayaal ciyaaryahankii caadi good hurre lagu bedelay ciyaartani gobolada Hawd iyo gobolka Gabiley ku dhex maraysa garoonka Hargeysa Stadium waa ciyaaryahankii bedelay caadi good hurre oo fanaanada 17aad u xiran xulka gobolka Hawd hadda ciyaartu si toos ah ay daawayaal nooga socotaa garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa xulka gobolka Gabiley weerar laakiin Cabdicasiis Kariyar lambar 5 xulka gobolka Hawd ayaa kubaddaasi ka soo difaacay oo u diiday in waryahanada xulka gobolka Gabiley ay u dhaafaan dhaga goolkiisa labada weerar ma kala yara ma kala cusla ma kala fududa labada ciyaartoy labada gobol kala ciyaaraya mid kasta waxa uu weerar culus ku hayaa difaaciyaanada xulka gobolada Gabiley iyo gobolka Hawd kubaddaas ayaa waxa laga soo laabi doonaa dhanka goolka gobolka Hawd Amiin Axmed Tifo lambar 22 xulka gobolka Hawd ayaa soo laabi doona Amiin Axmed Tifo soo laga Sharmaaka ayaa u soo dhigay Sharmaaka faad laakiin Mawlid ayaa kubaddaasi ka qabsaday in kasta uu Sharmaaka markaa soo laabtay Amiin ayaa kubaddaasi wata lambar 7 xulka gobolka Hawd waa iska difaaceen Gabiley شفاح دفاعي Cabdicasiis Kariyar lambar 5 xulka gobolka Hawd ayaa gacan tuurashadaasi tuuri doona waxaana uu dhigay ayaa la boray xanaaqada ayaa la qabtay oo sirwada Yuusuf mar kale uu ku qabtay xulka gobolka Hawd Maxamed Saalax oo ciyaaryahankii isagu lagu bedelay caadil good hurro ayaa kaarka uruudana qaatay ayaa ciyaarta weerar culus ku soo qaaday dhanka gobolka Gabiley ciyaaryahankii isagu kaarka uruudana la siiyay ee lagu bedelay ciyaaryahankii lambarka 9aad ugu ciyaarayay gobolka Hawd Cabdi Xasan kubaddaas laga leeyahay xulka gobolka Hawd iska soo difaacay mar kale Khabiir Mustafa fanaanada 20 diga u xiran gobolka Gabiley waxa uu dhigay فاول أما حراقة وعيارتي وهو حراقة بنايد انتي ترتك عيارها قبل الصومالي أنا السعودي تاسنا وحا السورة جلسي إلا ما وريان إلا ما روحوا كلمتايا أي حماسة يحيسة بلان بايو يلان عيارتها يلا ورا العرس أو مدباميد كلا دقيقة ما يركسوك وكسوك على كلا مركا ودفاع وقبصدنا وتواصل وكسوك على كوارك حلم قبل كجميلة كبدا سوا لكن لكن مدح واحد يسكاك بتوحل قبل كهاي آمين يا كبدا سوتا آمين كبدا سوا حوصل يا سعيدي لما رلح الحلم قبل كهاي حمزة سعرديد عياق عن تورشداسي ليباغا توسو ربر لوada xulka gobolka Hawd soo tuuray Saciid Xamsa ayaa dhigay Liyaaga Tuuso shiina waa soo laageen ballaaq dheer laakiin difaaca xulka gobolka Gabiley waa iska difaaceen waa Umar Ali Jifaax ayaa kubadaasi ku qabtay آمين أحسن يا لاعب kubada dheer baa kala soo qabsaday Daylaab kabtan Daylaab Cabdicasiis Kariyar آمين ayaa u dhigay آمين waa laaday sharbaaka balaki difaaca xulka gobolka Gabiley waa iska soo difaaceen xanaaqad faawil ama xanaaqad ayaa u siidwada Yuusuf oo qabtay lagu galay xulka gobolka Gabiley ayaa xanaaqadaasi loo dhigay labada weeraryahan ee xulka gobolada Hawd iyo gobolka Gabiley ayaa moodaa xiiso iyo inay ku ciyaarayaan kadib markay labadooda taageero ay ka helayaan dhiirigelin iyo sawaxan saxab ay ku siinayaan inuu mid kasta uu qabto guusha
iyo libinta hore ee wareegan labaad ee ciyaaraha gobolada Soomaaliland ay ku wada ciyaarayaan Hawd iyo Gabiley magaalooyinka Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley ayaa sida warfidiyanada noogu sugan Nimcaan Dheeg Ibraahim ay nooga soo warramayaa inay taageerayaasha iyo dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi ay magaalada dhexdeeda ku daawanayaan shaashado waaweyn oo lagu daawanayo ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo hadda si toos ah uga socota telefishinada madaxa bannaan iyo kuwa qaranka Soomaaliland ee ka howlgala gudaha kuna hawla sidii ay ciyaarta idinku soo gudbin lahaayeen magaalada Baligubadle ee xarunta gobolka Hawd ayaa iyadana looga soo Raxmaan Samriyarow ku soo warramaya inay dadweynaha ku dhaqan ay ku daawanayaan shaashado waaweyn ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo ay taageero yihiin xulalka kala matalaya labada gobol halka wadamada caalamka taageerayaasha labada xul ee ku kasugayna ay ku daawanayaan shaashado waaweyn oo lagu xuri goobaha lagu nasto iyo sidoo kale magaalooyinka dhexdooda oo iyagu ay kala taageerayaan labada xul ee gobolada Gabiley iyo gobolka Hawd magaalada Malaysia iyaduna waxaa la sheegayaa inay taageerayaal xulka gobolka Gabiley ay halkaasi ku daawanayaan shaashado waaweyn sida waxaan baxsan loo sheegayo wadamada caalamka xulalka ku kala sugan taageerayaasha xulalka ku kala matalaya ee ku kala sugan wadamada caalamka ee xulka gobolka Hawd ayaa iyaguna taageero badan u haya xulalka gobolkooda dawladda hadda idinku wareejiye Maxamed Xamdulle oo ka mid ah warfidiyanada idinku sugan garoonka Hargeysa Stadium si idinku soo gobolada Soomaaliland Khadar Ciise Dheere aad buu mahadsan yahay dawladda sida loo wada socotaana hadda waxa isagu dhaawac lagaga saaray kubadda cagta xulka gobolka Gabiley isagoo ciyaaryahankii lambarka shanaad u taagnaa oo markaasi ay hadda uu ku sugan yahay garoonka uu ka baxsay oo ciyaaryahanka inta badan daafaca isagoo markaasi uga ciyaarayo ugu adkaa oo dhaawac soo gaadhay dib ayuu ugu soo noqon doonaa daawadayaal ciyaartan waa ciyaar aad u xiiso badan run ahaantii tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu socdayna aad ayay u xiiso badnayd markii ugu horeysay labada xul gobol ee gobolada Hawd iyo Gabiley oo isku mar gobolnimo loo magacaabay ay markaasi ka soo qayb galaan tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ahayd 2011 waqtigaasi oo labada xul gobol ma aanay markii ay isla ciyaareen laakiin ciyaartani dhex maraysa maanta waa ciyaartii ugu horeysay ee labada xul gobol ay wada yeeshaan iyo markii ugu horeysay markaasi dhinaca tartamada weeyaan inta ay wada ciyaareen walow ay ciyaar saaxiibtinimo ay ciyaareen horaantii dabayaaqadii sanadkan 2016 mar ciyaaryahan ka mid ah xulka gobolka Hawd Haybo Good Hurre oo markaasi isagu ka fadhiisanayay ciyaaraha Somaliland oo laba sanadood xulka gobolka Hawd kabtan ahaa sanadkii 2013 iyo 2011 ciyaartu aad bay u xiiso badan tahay natiijadeeduna waxa ay maraysaa eber iyo eber ay labada xul gobolba ilaa hadda ismari laayihiin walow ay oo xul gobol kastaba uu weerarkoodu samaynayo fursado muhiim ah oo ku dhawaaday gool noqosho laakiin haddana waxaad moodaa inaanay ka faa'iideysaneen oo labada xul gobol gool hooyaashooda ayaa ah laba xul gobol oo labadooda gool wada ay aad u argiyeen gooladaha xulka gobolka Hawd ugu jira goolka oo Cabdiqari Saleebaan aynana yuuyal lagu magacaabo yuuyal naaristiisu ay tahay ayaa goolwada adag oo inta badan fursadaha muhiimka ah markaasi xulka gobolka ka badbaadinayo xulkiisa halka xulka gobolka Gabileyna ay markaasi uu goolwada u yahay Naasirina Cabdi Xasan oo isaguna lambar 1 u sita xulka gobolka Gabiley oo goolka ugu jira ayaa isaguna inta badan ciyaaryahanka ka badbaadinaya weerarka ay soo qaadaan xulka gobolka Hawd ciyaartuna aad bay u degan tahay waxaad moodaa in qaab ciyaareedka labada xul gobolba ay yihiin hanaan maamulka kubadda ay soo bandhigayaan ciyaaryahanada khadka dhexda ayaad moodaa kubaddu inay u badan tahay oo ciyaaryahanada labada xul gobolba dhex ayaa si weyn ciyaarta kubadda cagta ee labada xul gobolba uga dhex muuqda ayadoo ciyaaryahanno muhiim ah oo dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ka ciyaara oo kooxaha heerka koowaad ka tirsan ay ka wada ciyaarayaan aad mooday labada xul gobolba ciyaaryahanadoodu inay aad ay isku ciyaar garanayaan inta badan ciyaaryahanada labada xul gobol ka kala tirsan ayaa ka kala mid ah oo ay ugu badan yihiin kooxaha heerka koowaad ee Gaashaan iyo Goodir iyo sidoo kale dawladda hoose ayaa aad ugu badan oo ciyaaryahanada ugu badan ay uga ciyaarayaan labada xul gobolba tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland
وترتنك ugu xiisaha badan gobolada Soomaaliland laga ciyaaro ama horyaalada la ciyaaro tartankan waxa ka qayb galaya ciyaaryahanada ka qayb galaya guud ahaan marka ay noqdaan haddii aan markale idinku celiyo dhinaca orodka dhinaca kubadda kolayga iyo dhinaca kubadda cagtaba waa 342 ciyaaryahan 176 ciyaaryahan ayaa kubadda cagta oo haddii aan idin kala qaado xul kasta oo gobol waxa uu ka kooban yahay 22 ciyaaryahan marka la isku dhufto sideed gobolna waxay noqonaysaa 176 halka xulalka kubadda kolaygu oo xul gobol oo kastaba ay uga qayb galayaan 12 ciyaaryahan isla mar ahaantaasina ay yihiin sideed gobol oo 96 ciyaaryahan wadartooda guud halka gobolada ka qayb galayaan 14 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka koobantahay dhinaca orodka oo markaasi ay dhinac kastaba ama gobol kasta u ordayaan 5 ciyaaryahan isla mar ahaantaasina ay yihiin guud ahaan 70 orodyahan dhinaca garsoorayaasha kubadda cagta waa 20 garsoore marka oo dhexdhexaadinaya ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kubadda cagta ciyaaraha kubadda kolayga waxa dhexdhexaadinaya 12 garsoore ciyaaraha orodadana waxa dhexdhexaadinaya 10 garsoore 16 tababare weeyaan tababarayaasha kubadda cagta ee ciyaaraha gobolada ee 8 gobol oo gobol kastaba waxa uu wataa 2 tababare oo ah tababare ku xigeen sidoo kale kubadda kolayguna waa 16 oo ah tababare ku xigeen halka orodkana ay yihiin 14 tababare oo gobol kastaba waxa wata hal tababare dhinaca orodka ciyaartu ilaa hadda waxa weeyaan eber iyo eber labada xul gobolba mid kastaba waxa uu doonayaa in uu ka hormaro ciyaarta daqiiqadii ugu dambeeyay oo ciyaarta ayaa socota oo dhowr iyo 80 ayaa ay maraysaa ciyaartu waxaad moodaa qaybta ugu dambeysay daqiiqadahan ugu dambeysay markii la gaadhay inay kubaddu ku badan tahay dhinaca daafaca oo xul kastaba uu sameeyo inuu dhinaca daafaca kubadda iska soo saaro si daqiiqadaha kooban ee markaasi ka hadha ciyaarta aanay u suuragelin kasaba dhinaca lagaga horeeyo dhinaca kubadda ama goolka lagaga horeeyo oo ay tahay haddii xul gobol hadda lagaga horeeyo ay adkaanayso sidii ay gool ku keensan lahayn ama goolka baraajaha markaasi ay ku keensan lahayn ay aad u adkaanayso Sharmaake Fuad hawda kubadda watay hase ahaatee Cabdiriyaad baa hadda wata Cabdiriyaad laakiinse calaamadaha koowaad ee dhinaca galbeed ee garoonka taagan ayaa isagu waxa uu tilmaamay in khalad amaba ay gacan ku dhacday oo markaasi waxa laaga xorta ah loo dhigay xulka gobolka Hawd waxaana u laagaya ciyaaryahanka lambarka 20aad u sita xulka gobolka Hawd Sharmaake Fuad ayaa kubaddaasi laaga xorta ah laagaya garsooraha dhexe ciyaarta dhexdhexaadinaya Yuusuf Mawel ma go'aamin wali garso in uu kubaddaasi Yuusuf Mawel ayaa garsoorayaasha ugu khibradda badan garsoorayaasha kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland inta badan ciyaaraha la ciyaaro marka ay noqoto xataa ciyaaraha horyaalka ee kooxaha ayaa waxa uu yahay ninka loogu yeero ciyaaraha aadka ugu adag in uu dhexdhexaadiyo run ahaantiina si weyn ayuu uga dhex muuqdaa waana ciyaartan adag maadaama tii ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland kulankii ugu adka waa sababta loogu doortay Yuusuf Mawel in uu dhexdhexaadiyo ka noqdo ciyaartan aadka u xiisaha badan leh ee kala dhex maraysa labada xul gobol ee Hawd iyo Gabiley way laaganayaan kubaddaasi laaga xorta ah xulka gobolka Hawd Sharmaake Fuad ayaa kubaddaasi dul taagan Sharmaake Fuad ayaa kubaddaasi dul taagan waa laagtay laag dheer kubaddaasi birta ay masaafo dheer u martay ilaa 3 mitir u jirta waxay isku diyaarinayaan xulka gobolka Gabiley sidii ay kubaddaasi laaga dheerka ay iyaguna goolkooda ay ugu soo saari lahaayeen taageerayaasha labada xul gobol ayaa dhammaanba soo buux dhaafiyay labada gabiye ee garoonka Hargeysa Stadium oo garoonka ugu weyn Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana u qaadaa 20,000 oo qof waana taageerayaashii ugu badnaa ee abida ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland kulan sidan oo kala uu ka dhaco oo ay soo buux dhaafiyaan markaasi taageerayaashu laagbeer oo xulka gobolka Gabiley ay ku laageen goolka xulka gobolka Hawd ayaa baxday kubaddaasi waxaana kubaddaasi ay u baxday dhinaca gobolka Hawd waxaana ay soo laagan doonaan laaga dheer oo markaasi goolkooda Cabdiqani Saleebaan Caynaan Yuuyo oo saddexdii xilli ciyaareed ama labadii xilli ciyaareed hore iyo haddaba oo xulka gobolka Hawd uu ka qayb galay ugu jiray goolka ayaa kubaddaasi dhinaca goolka hadda waxa soo laagay kabtanka saddex gobolka Hawd oo ciyaaryahan Amin Tifo ayaa oo markii uu dhaawacmay ciyaaryahanka Gabiley baa la gashay dhinaca dilinta 18aad ee dhinaca gobolka Hawd laakiinse goolwadaha ayaa qabtay ciyaaryahanka kabtanka oo xidhan xulka gobolka Hawd hadda
waa kabtanka saddexaad maadaama uu ciyaaryahankii isagu kabtanka koowaad ahaa uu dhaawacmay oo khadka dhexda uga ciyaara Cabdiraxmaan Ilkacase ayaa maadaama uu ciyaaryahankii kabtanka labaad uu isagu ku fadhiyo oo ah gaas ayaa waxa uu kabtanka ku wareejiyay ciyaaryahanka kabtanka saddexaad oo xulka gobolka Hawd Amin Tifo xulka gobolka Hawd Amin Xirsi Cumar waa iska soo qabteen gobolka Gabiley Amin baa haysta hadana Amin Xirsi Cumar Amin waa laga qaaday xulka gobolka Gabiley Maxamed Jifo Gabiley Daawo lambar 4 xidhan Daawo oo xulka gobolka Gabiley Hawd Amin Tifo xulka gobolka Gabiley daafaca dhinaca midig uga ciyaaray lambar 3 oo xidhan Mawlid Cabdi kubadaasi oo oday lagu magacaabay kubadaasi gacan tuurasho u tuuray xulka gobolka Hawd gacan tuurasho ay tuurteen Liban ayaa la goob gobolka Hawd Daawo gobolka Gabiley Cabdiriyaad gobolka Gabiley haysta gareer baa ku soo difaaca gobolka Hawd baa hadda haysta ayaa la goob Liban Gatusho xulka gobolka Hawd baa wata kubadda xulka gobolka Hawd la dheer bay soo tuureen kabtan Baylo hadda iska celiyay kubadda soo difaacay daawadayaal ciyaartii waa ay dhamaatay waxaana ay ku soo gabagabowday eber iyo eber aan labada xul gobolba waxa gool la'aan ay kala dhashaneen run ahaantii ciyaar aad u xiiso badan oo labada xul gobolba dhex martay ayaa natiijadii ciyaartu waxa ay ku dhamaatay eber iyo eber ay markaasi labada xul gobol isla dhaafi waayeen kubadda daawadayaal sida aad la socoteen tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu yahay maalintiisii 8aad oo markaasi ay socoto ciyaartina waxa ay ku dhamaatay eber iyo eber sidaas ayuu inoogu xidhan tahay Hargeysa Stadium baahintiidii ka socotay